السلام عليكم. waan salaamaya dhamaantiin waxaa iskugu nimid barnaamijkeeni sportiga kooxda safar ku baxayso maamulka siyaad ciyaartooyda barnaamijka saddex qayb noqon doona haddana waxaan ku bilaabeynaa Yaasin Bulsho oo ayada quraanka nagu furdaan. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيداس كذا كنا قلنا وحنا قمها الله باي مركز إن شاء الله حرجينا ودارتي إلى سبحانه وتعالى ومدي ساس ودارتي مركز دان فهمنا وفهمنا قلبنا نظيف الله كده. ما سنتها ياسين هذا waxaa uu yeerayaa Xuseen gudoomiyaha ururka Somali International Youth Development warbixin ka siin doona koox safarkeeda iyo maamulka. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا حكتا أرتوا مهد إله يعني وحنو مالينا يا وسنة كي سنات أن بحين لكن سنة كان وحياة بدن يكدوا وكيهوري runtii sanadkan waalidiin aad u fara badan ayaa runtii meeshan joogta oo dhalinyartii ama caruurtii dhaleen oo dad waaweyn hadda ma sha Allah safarka aanu ka xidhno oo ku jira kulay waalidiintuna ay insha Allah ayaga hadli doona haddaan wax yar aan idinka taabto barnaamijkan ama yani socdaalkan runtii isboortiga Soomaaliyeed ama isboortiga dhammaan waxaan u maleynayaa inteena badan waxaan u maleynayaa waxaan nahay dad sporti oo ku soo dhex jiray ama dad sporti maxay tiishay oo ku soo tartamay runtii haddaan iska hadalno annaga dhalinyar ahaan ama maamul ahaan cayaarahaanu samayno ama waxqabadkaanu samayno runtii waxaanu sameynaa cayaaro oo xaafadaha ah waxaanu sameynaa cayaaro international ah waxaanu sameynaa cayaaro micnihii safarada la baxayo kale runtii barnaamijyada nagu dhaliyay inaan dibadaha aadna waxa weeye dhalinyartan cayaaray inay micnihii waxay yaqaanaan talentkooda inay micnihii ay kaga faa'iidaystaan adduumaha meel walba ay tahay hadday noqoto xagga carabta hadday noqoto Soomaaliya xataa runtiina waxaan u maleynayaa runtii maanta maalinba waqti waxay ag fadhiya haddaan ka soo qaato mid ka mid ah Cabdalle oo runtii aan oran karo wuxuu ka mid ahaa dhalinyartii maxay tahay ku soo barbaartay cayaarahan aanu sameynayno macalinkiisuna halkan uu fadhiyo iyo maxay tahay xasan laakiin riisaka aanu yiri Cabdalla micnii waxa weeye asagoo aaday carabaha micnii wuxuu jaanis u helay in micnii qarankiisii Soomaaliya inuu matalo micnii caawa waxaan maleeyaa haddaad fiiriso micnii wasiifi ahaan ninka mar hadduu galo qaran magaciisa FIFA micnii waa ku jira liiskiisa marka runtiina meesha ugu weyn oo aan wada tigsan waxa wiil dhalinyaro ah oo annaga naga soo barbaaray inuu de wadankiisii matalo wax annagoo dhan ma aragtay noo faa'iido runtiina waxa lagu gaaro waxa weyn wada shaqeyn haddii aan ka soo qaato dhinacan xagga Soomaaliya hadaan eegto Somali Football Federation oo kale annaga ahaan maamul ahaan waxaa noo qaabilsan for example Cabdirashiid Islow micnii hawshan dhexdiisa waxa weeye dhalinyartaan aragno fiican inaan Cabdirashiid waxaa jira hebel saas jiro fiican inuu asna directly uu la sameeyo maamulkii Soomaaliya joogtay Football Federation-ka marka in micnihii wiilkii la soo barbaariyay inuu markuu tago garoonka inuu wuxuu yaqaanay ma artay uu isbaro marka waxa weeye haddii aan ka gudbo micnihii safaradan carabtan aadan oo kale wiil waxaa jira runtii aniga wuxuu igu dhaliyay cusub aad u badan wuxuu ku dhashay Kuwait waa nin Kuwait laakiin baasaboor wuxuu wataa Soomaali koox uu dheelaa caraba micnii kooxo uu la dheelo waxaa la siiyaa halkii wiil almost waxaa la siinayaa 10,000 dinar asaga meesha Soomaali ka waxaa la siiyaa 1,000 waxaana keenaysa micnii baasaboorka uu haysto okay inankii markaan aan u tagnay meesha 2 sano horteed wuxuu ahaa nin aad u fiican Maxamed Ismaaciil baan la socday markuu ninka arkay wuxuu yiri this guy waa nin ma sha Allah aan aragno waxaan ninkan Janis wuxuu ku fiicay inuu ma artay uu ka qayb gali karo wadankiisii Soomaaliya inuu u dheelo isla markaan sheekada ogaanay Cabdirashiid baan la soo hadalnay micnii waxay ku tusaysaa safarka daan la tagin inanka Soomaaliya weli suma dheelin haddana wuxuu ka mid ahaa markuu wadanka tagay wuxuu sitay number 10 inuu qarankiisa matalo marka micnii dhalinyartan la kaxaynayo inay jaanisooda ay ka faa'iideystaan wiil waxaa jiray sanadkii dhaweyta aanu tagnay maxay Sweden ah markii aan ka soo noqonay way ka soo heleen way soo wacdeen waxay yiraahdeen nala joog bil waxay ka soo dhiibeen tigirkiisii hotelkiisii meeshii buu tagay wuu soo cayaaray waxay yiraahdeen waa ku rabnaa micnii waxa uu socda wada hadalkii marka waxa weeyaan aan aaminsanahay wiil yar haddii uu jaanis helo annagoo dhan buu ma aragtay ونفعي هويدي يا بي نمبر 1 وحو يحيى
astaan sanadkan micnihii sanadar waxay kaga duwaneyd awalka hore 14 15 ku bixi jirnay sanadkan 19 players 19 ciyaartoy baa ku jira 19 ka shan ka timid shan ka mid waxay ka imaatay banaanka maanta airport waxaan ka soo qaadnay Axmed oo ka yimid Switzerland Maxamed baa fadhiyo oo ka yimid Denmark caawa idala hadlayo 9 o'clock inama waxay soo degeen Heathrow ayagana waxay ka imaanay Sweden marka intaan waxaan u sameeynaa waxa weeye inay jaaniskooda ay helaan ay ka faa'iideystaan runtiina waxaas hawla macnaheedu waxa lagu qaban karaa waxa weeye isku duubni anu runtii waxaan aaminsanahay dhalinyarta aanu wadno haddaysan waalidka ayna siinaynin garab waxba maanu qabanin runtii mahad gaara ilaahay ka soko waalidintaan u celinaya waa mid caruurta ama dhalinyartaas ay nagu aamineen macnaheedu it's not easy maaha airport markaan ka baxayno su'aal badan baan la weydiiyaa xalli caruurta xagee u wadaan where they come from laakiin waxa weeye mar haddii aad gasho liiska lagu arko socodkaaga iyo macnaheedu dadkan they know meesha u socoto marka waxay ku tusaysaa in waalidkii macnaheedu ma aragtay always daba taageen marka inta marka ka gudbo barnaamijka runtii mahad gaar ah markaan ilaahay xaqiisa ka sokoyo macallimiinta garabka fadhiyo macallin Bob macallin Gargaar iyo macallin Cali Mire oo runtii every week meeshaan taagan ayadoo nin aan lagu siinin 1 penny wallahi waqtigoodii taamkoodii geliyay hadda caawa oo jeedaan waxa weeye almost waa -1 degree waay saasay tahayna waxa waay waa macnaheedu meeshii waa taageen waa joogaan waxaan kale u mahad celinayaa runtii asxaabteeda dhan oo macnaheedu barnaamijkan macnaheedu wada samaysay hal qof ama hal gacan fool ma dhaqdo runtii haddaan ka soo qaado dhalinyarada asxaabtaan nahay wareewan bili oo maanta badankooda 90% meesha wada joogaan runtii mahad gaar ay leeyihiin wallahi aad iyo aad isku maalim because qofku waqtigiisa ku soo huro waqtiga uu ku sii wax weyn waay runtii waxaad u jeedaan dad badan oo meeshaas oo ku dhagan runtii dad badan meesha ku dhagan qaar ka mid ah xaafad ahaan macnaheedu maadaama bis leeyihiin anaga jeclaysanay inaan promote garayno yeesan waxba nasiin laakiin waxa weeye qofka walaalka inuu arko hadduu meel isugu yimaanayaan ay dadku ay ka faa'iideystaan runtii mahad gaara waxaan rabaa inaan laba qof oo aad nolol shaqeeyo horta u celiyo urura ko mother and child oo Munciim halka fadhido insha Allah idana way iman doontaa mahad gaar u celinaya labo nin aan oran karo maxay hayto Soomaalnimo mooyaane wax kale ku sheegay because waxaan isku baranay waxa weeye waa sportigaas abu ninka halka fadhiya abu waxa way ninka arkaysaan last year ki ninkii the whole team to tiyaashi dhiibay macnaheedu hore isuma naqoonin xidid manihin family min laakiin Soomaalinimo iyo wanaag uu jecel yahay inba soo keentay marka runtii inta rabayna ku soo gabagabeeyo waxa weeye ko ciyaartoyda runtii aad baan ugu mahad celinayaa laakiin number 1 ciyaartoy waxaan ka codsanayaa waxa ugu muhiimsan akhlaaqda inaan kaan lahayn macnaheedu it's not the first time dhalinyaro fara badan baa jirtay haddaan isfaham weyno heerka waxaan haddaan isfaham weyno tigidhkaaga isla markiiba ku soo celinaa gurigaaga hooyada wacna aabaha waa lagu celinaya waxa weeye respect waxa weeye qofku hadduusan asaga isqadarin adigu nama ku qadarinayo macnaheedu waxaan aniga xuseedaan ka hadla ama asxaabtan la shaqeyno meeshaanu seexanayna haddaysan ayaga seexanaynin ma dhihi karno waynaanu seexanaa isku maqsin waynaan isku cunto cunaynaa waynaan macnaheedu markaa meel aada waynaan anagoo wada group wada aadna nin keligii u socda ma jiro marka dhammaan dhalinyarta waxaan ka codsanayaa intii baxday last year-kii waa baxday inta nagu cusub waxaan ka codsanayaa meesha maamul bay leedahay macnaheedu haddaba ninkii aaminsan inuu ma aragtay maamulka ama teamka uusan ka mid ahayn waxaa fiican waalidiintii waa joogaan maalintaan dhoof ilaahay ka sokow anaga idinka mas'uula over waxaa tihiin 18 maasha Allah oo dad waxaa tihiin qaangaara laakiin ilaahay ka sokow anaga idinka mas'uula marka waxa muhiimadu waxa weeye in nin walowba mas'uul saaran macnaheedu waxaad matalaysaa waalidkaada matalaysaa wiilka fiican macnaheedu waxa tusaa astaan inuu ka yimid family fiican wiilku waxa leeyahay war ninkan maxaa dhacay macnaheedu dhibaata ama xumaan waxa u keenaysaa waa family-gaagi marka fadlan waalidiinta aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa kulay mar rabo inaan ka hor dhaco macallimiintana saan sheegay marka runtii saaxiibkay Yusuf waxaan u maleeyaa waxaan hadalkan aan hadlayno always ma aragtid meesha taagan waa kaaga mahad celinayaa
talabaad waxaan u mahad celinayaa home cable oo runtii always dhinaca maxay sportiga mar walba naag taagan macalinka waa naag taagan haddana waxa weeye waa media marka taana waxaan u macalinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macalin cali mire iyo macalin yuusuf gargaar iyo macalin bob kelmada soo jeeda waxaan ku horumarinayaa macalin cali mire السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور وسلامتين هرترو. سلام كده وحاو مهد علينا يا أنتم سنة كستبي سكسوا بابو شو حنا بعيارتو إذا ملك سفرة ووضان. رنتي هرترو وحا حسوس مدن. رنتي وحا حسوس مدن. أو أنا حسوس إنه وناكسن. فرقة أنت فرد واسك فرد رنت ريالتي مركا كاد واسك فرد يا ما إنه مجوع عنك دان أو حسوس وحي يقول مع الظاهر وماشي أنا اللي جوج جرومان تنا مكان فاتح هذا ومرنا هالمر آمين إلهنا وقبل مركلا بعد نحاول مهد علينا يا معلمين تو مشان الفدان مامل حسين ديق محمبوبة يوسف إسلاو أنت سنة كستو عيارتي سنة وقرب يستاغنو ميل كستو ودانا وما سنتين أسكا معلم أهانا أنا كان واحد ديارونا هاي وحالا وحي أنو بحنتين إنا يدين قرب يستاغنو قبو قليل روب وحي نغطبا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد horta dee runtii dhammaantii horta marka hore wada salaamayaa labaad uma soo diyaar garoobeen inaan hadlo hadalkana kuma wanaagsani oo markii labaad intaan nolosheeda ku noolaa aan kamaris hortaago kadis baana lagaga dhigay qof soo diyaar garoobeyna maan ahayn hadiyo goolaalan anigu afka kama hadlee ficilkayga hadla waad mahadsantihiin horta halkan waxaan uga soo mahad celinayaa dhammaantiinba dadkan ka soo wada qayb galay qurux badan waayeel marwooyin iyo mudanayaalba aad baan idin salaamayaa marka labaad salaanta waxaan siinayaa walaalkay xuseen oo munaasabad yani sharaf ay tahay gacanteeda ku soo barbaaray haddii xagga kubadda noqoto waana horumar uu sameeyey walaalkay xuseen maalinka maanta inuu mas-uuliyadda qaadi karo marka waana midaan ka filayey waayo isagoo intan ka yar oo 16 jira ayaa wuxuu nagu kaxeeyey gaadhi haddii aan xasuusanahay maxamed baan u tagnay berigaa aan ugayn 91 beed baan filaya 16 baab iyo 17 baab gaadhi dhan van noo kaxeeyey markaa mas-uul horta markaba hore uga baqayo inuu hore u sii karo mooyaane marka labaad hadalkii way kala beerbeerayaaye wax walba waxa ugu wanaagsan adduun waa la helaa laakiinse waxa ugu wanaagsan wax la gasho dad baa ugu wanaagsan marka abaalmarinta iyo quruxdaba nimanka halkaa joogaa leh halkaa soo fadhiya ee quruxaas iyagaa leh inteena maanta isku timid iyagun baanaynu qurxin karaa iyagun baanayna fool xumayn karaa waxa weeye qofka bini aadamku wuxuu ku taabaa waa dad baa ugu qiimo badan dadkaasina wuxuu uu maalkiisa iyo midhihiisaba wuxuu helaa inankaasi marka uu meel wanaagsan ka soo baxo oo magac wanaagsan sameeyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum marka ugu horeysa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba inta sharafta leh ee ka soo qayb gashay press conference-kan Somali International Youth Development run ahaantii isboortiga qiimaha uu leeyahay aniga iyo xuseen deeq maanta faamilniman iskumaana niman qabiil iskumaana niman 1991 oo 1991kii macalinkiisana wuu fadhiyaa gargaar ayay waxay igu yimaadeen Sheffield iyagoo Wembley ka yimi ayay noo yimaadeen sidii baan kubaddaasaan isku baranay maalintaas isku kaayo horeysay from that day waxaan noqonay markaan London nimaadnana iyo kuma u iman jirnay iyakii gargaari waxa isboortiga waxa ku tusaysaa maanta ay tahay 2014na Melbourne wada fadhina waa 19kii to 2014 marka waxa ku tusaysaa isboortiga qiimaha uu leeyahay iyo walaaltinimada uu leeyahay ciyaartooydan dhalinyarada markaan u soo noqdo koleyba dhalinyarada maanta halkan la isku keenay I believe inta knowledge-kayga iyo inta macallimiintaba inay yihiin dhalinyaradii dad badan baa ayaa yimi ciyaartooy badan oo ilaa 60-70 gaaraya laakiin inta aanu rabnay 19 ciyaartooy bay ahayd intii aan rabnayna waan kala baxnay insha Allah
annaga intii noola muuqateen waxay noqotay intii ugu akhlaaqda wanaagsaneed sometimes kubaddu ma aha mataqaanaa xariif baan ahay laakiin akhlaaqda ugu muhiimsan iyo ixtiraamka mataqaanaa uu leeyahay disciplineka waayo waddamadan u soconno waa carab weeyaan marka taana bointkii ugu horreysay aanu ku eegana waxay akhlaaqdooda iyo mataqaanaa dee inta badan iyo waalidiintooda garab taagan waayo ilmaha soomaalida 99% waxay dhulka u galeen ay horumar u gaari waayeen run ahaantii waa siboodka waalidka ee heli waayeen iminka kalabyada waaweyn oo dhan maxaa naga reebay waxaa naga reebay waalidiinta sibadan maadaama ay maanta waalidiinta joogaan waxaan leeyahay carruurtiina dabagala la socda hadday kubad ciyaarayaana raaca mar kaste si ay u ogaataan ya marka intaasaan kaga baxayaa haddana waxaan kusoo wareejinayaa kabtanka kooxda xasan cabdinuur sheekh isaaq oo kabtan kooxda السلام عليكم waxaan rabaa inaan mahad celiyo xuseen deeq iyo macallimiinta oo timekooda iyo lacagtooda isticmaalay inay anagana isku keenaan inaan walaaltinimo inaan isla ciyaarno inaan meel ku gaarno insha allah haddana waxaa u yare cabdallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل يوم السلامي marka hore mahad waxaan u celinayaa aabayaashii hooyooyinka ka soo qayb galay munaasabadan marka labaadna waxaan mahad celinayaa macallimiinta ka soo qayb galay macallin Bob iyo gargaar iyo macallin Calimire iyo maamulka uu hogaaminayo Xuseen Deeq marka saddexaadna waxaan rabaa inaan warbixin yar niga sheego ciyaaraysi u dhaceen saddexda sano ugu dambeysay ciyaarahan ka qayb galayay carabta tagaynay waddan muslima oo kooxyaal oo heer koobaad u bixinay si fiican u dhacday anoo qaranka 2012 anoo qaranka tagay oo ciyaaro badan ka soo dheelay oo laga arkay ciyaarahan oo kale ciyaarahan oo carabta ka dhacaysa marka waxa uu sheegaya ciyaartooyda hadda raacaysa yararka in ayagana ka faa'iideysan karaan sidaan oo kale si aanu ugu faa'iideystay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ma salaamantihiin dhammaantiinba inta shir ka soo qayb gashay anoo ku hadlaya magaca waalidiinta ma aha markii ugu horreysay muxuu ahaa canugan dhalay uu raaco muxuu ahaa Somali International Youth Development Group waa markii labaad hadda ka hor Roble oo ah ciyaartooyda ka mid ah wuxuu u raacay Tunisia marka wax dhibaataana kala ma kulmin marka waxaan leeyahay waalidku waxaan ku qancinayaa muxuu ahaa inay walwal ka qabin ilmahooda waxayna u tahay muxuu ahaa ay sheegeen wax fiican inay safraan ee wadankooda matalaan waa fahamsan marka waxaan dhihi lahaa waalidka ku kalsoonaada nimankan wado Bob iyo Xuseen iyo muxuu ahaa macallimiinta kale in macnaha ilmaha wax dhibaato ay soo gaareen intay xagga joogeen Tunisia markasta inoo soo xiriirin jireen waa inoo soo hadli jiray Skype kulli marka waxa waaye waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba wax walwal ah ka qabina oo muxuu sheeg waa la daryeelaya ilmihii midda kale sportiga wuu fiican yahay carruurtii inay muxuu sheeg ay ka qayb qaataan oo muxuu ahaa waxay uga badbaadayaan waxyaabaha ciyaar suuqnimada muxuu sheeg meeshan lagu haayo gaangiska waxaas dhan way uga badbaadayaan canuga intuu sports ku mashquulsan yahay ama dadkiisa ku dhex jiro waxaas oo dhan wuu ka badbaadaya muxuu sheegaan ma ku wareerayo waxaas oo kale marka hadalkayga intaas ku soo gaabinaya muxuu hadal badan ma aqaan kulay laakiin wassalaamu calaykum xasan waa maasan tahay haddana waxaan u yeerayaa Cabbaas xasan Shariif oo sana ka mid ah waalidiinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذا وحالة معلمينتا والدينتا iyo ciyaartooydii hore dabcan fadhisa meesha marka sportska qiimaha uu leeyahay hadda kama hadlayno waa wada garanaynaa ciyaalkana waxay u tahay wada wanaagsan annagana dhiirigelin markaan aragno ciyaalka nin ka mid ahoo team weyn u ciyaaraya waxaan leenahay wallaahi maanta horumar u gaaray sportska Soomaalida marka insha Allah waa ku dhiirigelinaynaa kamana baqayna insha Allah nimankan soo qaban qaabiye bixitaanka wax walbaba inaan ku garab istaagno mooyaan insha Allah waa ku garab taaganaa wax walba assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaa u yeeraa xasan cabdullaahi sabriye oo fanaan ah oo ka mid ah odayaasha xaafadda iyo waalidiinta kooxda السلام عليكم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد waxaa sharaf weyn inoo caawa inaan halkaan isugu nimaadno annagoo runtii hal qabiil wada ah hal qabiilaan wadanaha caawa qabiilkeennuna waa Soomaali weliba waxaan nahay isku bah oo ah isboortiga halkan waxaa caawa ka muuqata farxad weyn ubad soo koraya loo barbaariyay ciyaaraha iyo macallimiintoodii iyo dhammaanba intii ku soo dadaashay oo halkan wada fadhiya sida aad ogtiin al-aql as-salim fi jism salim hore loo yiri aqliga caafimaadka qaba wuxuu ku jira jirka caafimaadka qaba marka ilaahay waxaan idinkaga rajaynayaa guulaha aan filayno inaan gaarno midda kale inaan isku duubnaano Soomaaliya inaan noqono far kaliya ilaahay idinkii waxaan mahad gaar u celinayaa runtii dhammaanba guddiga tababarayaasha ciyaartooyda halkan isugu timid marka waxaan rabaa inaan iraahdo xogaa dhinac waxaa jirta aniga aan idinkaga badnaa oo fanka ah xagga fanka caawa markaan dhinac yar ka taabno anigu waxaan dhihi lahaa aan cizino cayaaraho calanka sharaftiisi weeyaane aan cizino cayaaraho calanka sharaftiisi weeyaan waa mahadsantiin haddana waxaa u yarayaa saddex oo maamooyinka kooxda ciyaartooyda hooyooyinkood oo ra'aantii isboortiga shaqooyin ka qabta Maciime Cali Hareed Aamina Cabdulaahi Aamina Cabdiwali iyo Nadiifa Cali saddexdin dhammaadin ninkaan idinku salaamay anoo ku hadlayo codka hooyooyinka oo iga codsaday inay ka xishoonayaan maaqan waa ka indhaadaga homaleynaya waxaan leeyahay hambalyo waa aad arrin u farxad badan walaalkay Xuseen Deeq iyo Yuusuf iyo Buuba iyo inta macallimiinta la shaqeysay iyo ciyaalka yaryarka oo maanta service ka sameynaya iskuulna ka yimid ama dugsi quraan oo matuushin oo nala taagan aad uga mahad celinaya xafladan quruxda badan leh waxaan leeyahay oo mar walba aan garab taaganahay ilaahay ha nabadgeeyo ilaahayna ha soo nabad celiyo waa wax lagu daydo waa wax annagana waalidiintana looga baahan yahay waalidiin badan horta caawo jidka ayay ku soo jiraan oo saacad ayaa ku adkeed waqtigan laakiin anoo haddan isoo wakiishan codkayga ku hadlaayo waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaartooyda oo maxaa la dhahaa sheeg isku soo diyaarisay inay guul la soo hoyaan xafladan caawa waa ambabax oo sii socda idinkoo nabada laakiin soo noqodkiina waxay noqon doontaa xaflad aad u weyn importanti maan inaad reesaan importanti maan inaad nilaga badiyo waxaa importanti ah dalmarka iyo waqtiga aad geliseen iyo sida u socotiin iyo sida u soo noqonaysiin waxaan leeyahay hambalyadaas oo maanta igu farxad badan oo mar walbana aan jeclahay inaan garab istaago walaalahay iyo wiilasha yaryarka ah oo maanta jecel inay safaro badanna soo maraan waan u duceynayaa hadalkayga caawa aad iyo aad ayaa u qiirooday caruur waxaan arkay irmeegan ka sheegaya aan casheenin maxaa dhacay loo casheen waaye sidee ku dhici kartaa inaad markii nala sii fadhidaan idinkoo casheen xagga markaad tagtaan inay stress noqdaan ma aabayaasha idinla socdo responsible inaad noqotaan ereyga haddii nila dhahay taas ayaan idinku waanaa akhlaaqdana waa gooni iyo nadaafadda hooya ahay dharkiinana inaad dhaqataan nilala yaabo kaliinkiina saboodkiina physicalkiina farxadna oo noqoto oo wasabkiina loogu soo gudbisaan taas ayaan idinkala dardaarmaa akhlaaqdana waa wax weyn waxaan leeyahay isjeclaada ha dagaalaminina noqda kuwii isjeclaado oo respect fiicanna kuu soo hooyo intaas ayaa idinka codsanaya waxaan idinku soo dhaweynayaa si weyn asalaamu calaykum galabta horta aad iyo aadaan u faraxsanahay sida quruxda badan horta xafladan loogu soo qayb galay iyo dhalinyarada maasha Allah quruxda badan iyo waalidiinta iyo dadkii soo abaabulay iyo macallimiinta horta aad u mahadsantiin kow midda labaad farxadeyda waxay tahay mid macnaha aad u weyn because dhalinyaradeenna baryahan waxa waaye waxaa lagu hayaa camera lagu hayaa waxbay haleeyeen intay ka dhaceen waxaanay sameeyeen يعني وحن ما هنا وح ونكسن كما مقلنا لكن عاو آدي يعني ugu faraxsanahay in caawada halka la isku yimaado arin farxad leh iyo dhalinyaro macagtay wanaagsan oo qaarkood ay wadankeeni iyo qarankii ay matalayaan iyo maasha Allah dhalinyaro kale oo mas'uuliin ah marka aad aan ugu faraxsanahay waa wax anaga qarannimadeena iyo dadnimadeena yani muujinayo
inaan dad wanaagsan oo wax qabsan kara aan nahay in badan oo negative way jirtaa insha Allah laakiin waa ka wada gudbi doonaa arintan waxa waaye in la dhiirigeliyo in la garab istaago in la caawiyo annaga hadaan hooyooyin nahay insha Allah waa idin garab taagnaanaynaa maxay tahay dhalinyarada la shaqeeya marka dhalinyarada aan la shaqeeyo waxa way tuition iyo waxbarasho iyo waxaas aan ku mashquulsanahay laakiin xagga sportka markii hore waan ka liidanay alxamdulillah hadii lagu baraarugay oo ma sha Allah arinta hadda saar u dhacday waan ku faraxsanahay aad ayaan ugu faraxsanahay marka alaykum waa run horta fursadaan helnay alxamdulillah ilaaha mahadiisa caruurteena waxaan u mahad celinaynaa macallimiinta maanta soo abaabushay xafladan oo farxadda caruurteena alxamdulillah ayaka u mahad celinaynaa mahadna waxaa iskale ilaahay mahadna waxaa iskale haddana dadkii nagu soo qayb galeen xafladan ayakana waa u mahad celinaynaa alxamdulillah aad iyo aad ugu faraxsanahay caruurteena maadaama oo sportiskiina ay jecel yihiin oo safarkoodii alxamdulillah السلام عليكم ورت هذا الكل دير waa la dhahay ma sha Allah marka ilaahay idin nabada idin ku keen nabad ilaahay idin ku soo celiyo السلام عليكم halgaar qaybtii oo odayaasha sportiga iyo bahda sportiga oo London waxa uu yarayaa in Abu oo ah nin ganacsada ah oo mar walba sportiga caawiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لا halka ka soo qayb galay kulligiina waa idin wada salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaam 114 quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala cadadiis salaan kadib wiilasha yaryar ay qiimaha iyo qaayaha leh ee magaca ummadda Soomaaliyeed kor u qaaday waa wada mahadsantiin caalamka waxa uu noo haysto waxay tahay wiil Soomaali waa tourist Soomaali waa shabaab dhalinyaradeedu waa drug dealer robbery and rape manihi annaga caalamka way leeyihiin dad fiican iyo dad xun annaga dhalinyaro fiican inaan leenahay waxaan rabnaa caalamka inaan tusiino funaanadaha Soomaaliya ku yaala looga baxo gegida diyaaradaha ee Ingiriiska Heathrow si looga arko CCTV kamarada Soomaaliya oo wada socoto oo qaran ah waxaan idin ka codsanaynaa waa taas tan labaad waxaan idinku garab taaganahay wax allaala wixii support ah wax allaala wixii foundation ah garabkiina ayaan taaganahay annaga isboortiga siyaasad ma aha jagada ra'iisul wasaaraha way banaan tahay cawada moogtiin taas laakiin isboortiga siyaasad ma aha isboortiga wax siyaasad ma aha waa caafimaad isboortiga iyo nabad haddii aad maqashaan sports waa caafimaad iyo nabad qolyaha wax ka qarxi waxa la sheegay markii ciyaaraha oo gobolada oo ay gobolka Banaadir uu macnaha aaday Puntland oo ay yani ka socotay shabaab waxay siinaysa jid sababtoo sport siyaasad shughul kuma laha haddaad sportis tahay Muqdisho waxaad ka maraysaa meel alla meesha rabid qof joog ku dhahay ma laha laakiin politician annaga shaqo ma kuleeni waxaana wayna naga go'an tahay meel alla meesha tagtiin inaan idinku caawino magaci Soomaaliya ayaan idinku ogaa inaad kor u qaadaan wax fiican aad sameysaan dhalinyaro waa wada mahadsantihiin thank you very much assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan la joogo qof muhiim noo ah run ahaantii gudoomiyaha kooxda Elman oo Soomaaliya joogo oo reer London ah oo Soomaaliya koox ka shaqeeyo oo dhiirigelin ciyaalka Soomaaliya joogan run ahaantii waxaan jeclaan lahaa inaan caawino kooxda Elman oo kale oo run ahaantii dad annaga naga mid ah ka shaqeeyaan Cabdiqaadir Bardiid aan yaraya عليكم ورحمة الله وبركاته maamulka quruxda badan oo hawshan isku soo agaasimay aqyaartaan oo dhan u yeeray aad iyo aad horta u mahadsan waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa macallimiinta rumaantii ninkii maamula oo sports ka shaqeeya waa fahmi karaa tiirka ugu weyn oo hawshu ay ka bilaabato waa maamul iyo macallin waxa ku soo xiga on waa ciyaartoydii iyo maaragtay wixii lamida shaqada ayagu ay haayaan hadday qurxoonaatana ciyaartoydu way qurxoonaanaysaa waxaan leeyahay marka aad iyo aad horta u mahadsantihiin shaqadaana in muddo waa soo wadeen in muddana oo aad wadeenna aad iyo aad ay u qurxooneed waxaan rajaynaana hadda iyo wixii ka dambeeyana inay haddana intaas ka sii qurxoonaato waxaan rabaa inaan in yar aan dhallinyarada wax yar iraahdo dhowr jeerna waa lagu soo celceliyay xagga akhlaaqda aad iyo aad waxaa muhiim u ah in akhlaaqdu ay muhiim ahaato ciyaartoydu sidiisaba waxa qurxiya oo wanaajiya oo ciyaartoy
run ahaantii aad u tilmaaman ka dhiga waa akhlaaqda qofku markuu maamul yahana marka uu haysto ciyaartooy aad u akhlaaq fiican waxaa u sahlanaanaysa in uu wax maamulo maamulkii iyo shaqadii uu hayay way u fududaanaysaa laakiin haddii ciyaartooydu ay kaa soo horjeesato oo aysan akhlaaq fiican lahayn wax walba waa kaa soo horjeesanayaan haddii ciyaartooygu uu noqdo ciyaartooy aad iyo aad u akhlaaq badan believe me wax walba waa kuu fududaanayaan maamulkana sidiisaba shaqada ay hayaan iyadoo ay aad u adag tahay oo ay wax badan isku xirxirayaan haddana dhinacii adiga kaamid ahay oo ciyaartooyda ahay haddii lagaaga soo jeesto aad ay u dhib badanta sideedanaba waxa waaye haddaan kala dambayn jirin maamulku ma qurxoonaanayo markaad xitaa isla socotaan sharafaad leedihiinoo waa qurux badantihiin marka la kala dambeeyo run ahaantiina maamulka yacni in uu yahay ma aha mararka qaar maamul isxoogeynayo iswaaweyneynayo ma aha laakiin waxaa la rabaa in jaranjaradu ay xitaa ay muuqato anugu waxaan ka mid ahay dadka maamulka oo run ahaantii aad iyo aad markay ciyaartooydooda la socdaan meesha ugu liidata ka seexda weligay iyo allahayna anoo ciyaartooy la socda meel ka qurxoon ma seexan waxaan xasuustaa hoteello 5 star maamul ayadoo nala siiyey iyo xiriirka inaan anigu aan yiri ma seexanayo waxaan rabaa in aan seexdo waxaa xitaa caan ahayd sariir oo maaragta markaas aad la dhahayo waa top aan waxaan siiyey macallin geela sariirtaas adaa iska leh sariirta marka waxaa la socday special alaab oo raashin macallin geelana aadaa loogu tilmaami jiray xagga raashinkiina uu jecel yahay macallin geela alaab waxaa loo keenay aan caadi ahayn alaabtii markuu arkay wuxuu yidhi wallaahi bilaahi cabdulqaadir meeshaan waa uusan ogeyn maahane alaabtaan ima siiyeen marka maamul kastoo aad tahay is good inaa ciyaartooydaada meesha jiifaan meel ka hooseysa aad seexato taasna waxaa kaa keenaya waxaa waaye waxaad rabtaa ciyaartooydaada adigu inaad isku mid noqotaan marka waxaan idinkula dardaarmayaa ciyaartooy haddaad tihiin raggaas akhyaarta oo dhibkaas soo maray oo intaas soo qurxiyey oo hawshaasoo dhan idiin soo qabtay waxaan idinka codsanayaa inaad ku sharaftaan caawa halkan laga baxaayo iyo habeenka lagu soo noqonayo intuu haddana maaragtay laydin soo dhaweynayo inta u dhaxaysa waqti dheer ma waa 2 weeks hadday u badato waa in ka mudan yihiin 2 weeks inaad ku sharaftaan in aad wax allaale iyo wax sharcigooda ah aad raacdaan I don't believe inay sharci xun idiin hogaaminayaan taasna waa aad iyo aad muhiim u tahay quruxda ugu qurxoonna waxa waaye marka tiimka oo isla jaan qaado oo dhinac kasta ay bahashu isaga dhacdo sharafteeda markaas ay leedahay intaas ku sharfa maamulkiina haddii ilaahay idmo waxaan idiin rajaynayaa guul anuuna kolleytaba maaragtay elman iyo halaygu tiriyo laakiin akhyaartaana aadaan isugu fiicanna raga aad iyo aad wax u wada cunno waaye waana ku qanacsanaha shaqada ay qabtaan shaqo aad u wanaagsan waaye nin kastoo isboortisa oo wanaag wadana waxa oo wada in lagu qanacsanaado waa muhiim sidaas marka insha allah ayaan idinku sagootinaynaa khayr iyo barwaaqo nabadgelyo iyo soo dhoweyn wacan insha allah waa masan tahay badartiit haddana waxaa u yeerayaa nin madax ah oo xaafadda madax ka ah waxaa sugaysan ama nin caddan oo maanta waxaa nin Soomaali ah xarbi oo konsularka xaafadda ah السلام عليكم أنا غير سبورت ميهي وحنا هاي قديدان برنت لقى صوت دورته مركا رجع سبورتسكي لقوا يقينا فدي ماشى حفلة دودي واي لكن وحن آد وقفر أحسن هاي إنا مارك تكسو قيب قالوا أيضا حافظة إنه برنت أي كده عيسو مدة كلا وحول بارتور وح أقوم مهم سم أبابل كيدتك أوقع إني سميان dadkii waxaa sameeyey oo soo abaabulana aadaan ugu mahad celinayaa miya hergabaa jira dhammaan marka aada u mahadsantihiin dhalinyarada baxaysana maaragtay waa u duceynaynaa waxaan rajeynaynaa inay si fiican noo matalaan magaca kor u qaadaan insha allah haddii ila yaraado wax walbaan ku taageeri karana diyaaraan lanahay haddaan xaafadda iyo degmadana insha allah aan ku taageerno aada u mahadsantihiin haddana waxaan gelinaynaa isboortiga odayaasha isboortiga ka hor intaan gelin
waxaa uu yeerayaa odayaasha xaafadda oo mar kasta oo isboortiga taageero oo meel kasta joogo yaasiin burshe. ninka meesha ka hadlayay marka inuu caalami yahay taas cadaynayso macnaha oo aysan ahayn kaliya England kaliya iyo maartay iyo Soomaali kaliya aysan arrinta ahayn marka kaas horta ururkaas aad aan ugu mahadcelinayaa maxay la'aantiis maba la isku yimaadeen san rajaynayo maxay barnaamijkaas organisator ka ah iyo saaxiibada kaalmeynayo marka ururkaas waxaan u baahannahay inaad si kaalmaysaan la xoojiyo inta kale ururada iskalena yaan la kala caroone hal iskaalmeeyo taa intaasaan ka leeyahay macallimiinta carruurtaas wax baraysay macallimiinta waddankan intay qaataan waa taqaanin kolley ayagu waxba qaadan wax barahayana waa ku mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa inayan daalin nafahantooda da'dooda ku sii dhismayso maxaa yeele hadduu sii duqoobi lama duqoobayo xilmihiisa u sii dhismaayo asna jirkiisa qayb ha ka dhiso ummaddana jirka ha u gudbiyo ayagana waa ku mahadsan yihiin macallimiinta maarata arrinta ay sameeyeen waxaan kaloo aad iyo aad maxaan ugu mahadcelinayaa dadka xaafadan degan haddaan anaga baaroogan ana qaas special xaafadda meesha lagu qabanay hadda waa Stonebridge waa meelan ku noolno ku dhalanna maarta hadda consularkaas shalay wuxuu iska community noo aha maantana consular waa bari dacwada u geysan karna shalay foomka loo buuxinayo maantana dacwada u geysanayna haddii macnaha ama gur la'aan kugu dhacdo ama dhibaato kugu gaarto macnaha waa in la dadaalo oo loo dadaalo mar walba in la galo macnaha xog ma aha kubadda cagtu ma aha maarta anaga kubaddan dheeli jira ma aha kaligeed qalinka waxbaa lagu dheelaa marka ninka qalinka ku dheelana kaalmeeya marka asagana hal la qiimeeyo maarta qadarin gooni hal la siiyo waa maasayin ala kulli xal waxa kale oo badar badar diid kulay waa caruurteeda ani kulay nin weyn loo malay laakiin badar diid hadalku yirina hal fuliyo ana waxaan ka hadlayaa nimanka tiimka raacayo ama odaha ahaado ama hooyaha naqato ama leader ha ahaado caruurtina xubin ka yahay miskiin wax kula cunaan caruurta maxaa culuga yariiska ilmaha dhalna kulay annaga hadda ilmaha dhalna marka adiga hooyo waxay ku qaran kor u ka fiirina muxuu fiirinayaa in wax zaid lagu siinayo marka ogaada mas'uuliyad kale waa nafteeda mid labaad laacibinta baxdo israacayso hal lagu arkana ku dheelin adiga soo saarna ku dheelin tiimka wada jirkiisa ka dhaxbaxaysa sida baas u dhigta wax ku helaysa sidaad maarta banooniga markuu ninka kaalaha asiisana qiimo ku helaysa waxaan ka hadlay waa taas aniga laakiin hadday tahay aniga xariifta maayo goolka aniga hal arkaan ana la qaadan doonaa waxay meel gaaraysa malaha lama qaato kaas waxaa la qaataa laakiin ninka inta banooniga soo u dhigaayo iyo qaabka banooniga u dhiibayaa muhiim ah inay iskaashataan oo magaca dheelaysaan aad daalina sidii la sheegay aad caroonina maxaa yeelay ninka hadii xoogaa haraati lagu dhufto haraati ka daba geyso ee red lagu siiyo tiimkaadii curyaamisa taas xisaabta ku dar waa maasantihiin sida inta ka soo qeysay waa jazakallahu khayran waa mahadsan tahay haddana waxaa u yeerayaa tarabi oo ah dhalinyarada isboortiga nooradka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول فرح سنة هاي إن ماشان أو كذا عاو شركة قروح البدن ويلش وحن كل دردار ما أكلية أغلاق إن اللي عليه. سبورتس بلونا ده يلس أغلاق دادن لهن وحقق بنكرت الملأ. مركا إلى هذا أروريو إلى هذا السون نبض عليه. السلام عليكم. ما سنت هذا أنا حأقول إن عيارتودي هرا صوماليا وإحنا رجوا أحمد محمد حاشي وجيني وصو عياري. oo ah gudoomiye suuq xir waxaana jooga boorteerigii kooxda horteed ee qaranka Bioley waxaana kale noo jooga Bela Bram Bacad soo ciyaaray iyo Ali Mire amarna ciyaartoy ahayd iyo Maxamed Hambol soo ciyaaray Hambol iyo Xasan Xarki oo ah ciyaartoyda ordada iyo Cabdiqaadir oo soo kayd ku soo ciyaaray waa maasantiin dhamaantiin haddana waxa uu yeerayaa Axmed Maxamed Xaaji Sayga. Bismillahir Rahmanir Rahim. horta waxa idinku salaama salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aad waxaa ugu faraxsanahay sida la iigu sabciyey taasna waxay tusaysaa ma aragtay in weli nin rajo laga leeyahay oo fiican inaan ahay laakiin dareenkayga waagii hore wuxuu ahaa muku sheegaa xoogaa cilladaa jirto niyaho sportska maadaama xoogaa aan ku raagay ama maamulada meesha aan ku raagay yani xoogaa inaan niyad la ihayna u maleynayo laakiin hadda niyaddaydu waa isoo noqotay waxaana rajaynayaa hawsha midaan horta meesheeda kasii wada inay noqoto insha allah talabaad yani horta waxaan u mahadcelinayaa
guddiga soo qabanqaabiyey xafladan iyada ama dhalinyaradan yaryarka ama aragtay maanta soo aruuriyo maanta dibadda maxaan dhihi lahaa mid ay geynayaan ay tahay horta iyadana waan taageeraa mother and child oo mar walbeeta iyadana sidoo kaleeto Naciima aanan naga harin oo mar walbeeta meesha sports lagu qabanayo garab taagan iyadana sidoo kaleeto waan u hambalyanaya iyo sponsoriska meeshan guud ahaan ka qayb qaatay macallimiintana marka ay noqoto horta lamaba heli kara gargaar iyo boob iyo calimire waxa waaye yani niman intii aan arkayay oo waddankan aan joogay 20 sano iyo dhowr intaasba yani qabanqaabada sportska aad iyo aad dad ugu mashquulsan ay ahaayeen ilaahay ajar waa ka siinaa kulle iyo kulle ayagana taas ita la midka ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan dhihi lahay waxa sheegay ninkii igu weynaanay Axmed Nuur meel uu ka hadlay ma ka hadli karin ninkan walaalkay waa igaga horreeyay garoon waa nin aan maaragta aan aaminsanahay sida dadkana yaqaano meeshaan fadhiyo doctor cunaaye degeye dadkiina kale waa iska yaryartiina u malaynaya marka waxaan la dardaarmayaa marka لاعبينta yaryarka ah ninkii balooli soo dheelay ayaa ka hadli karo balooli wuxuu yahay لاعبينtiina waxaan idinka la dardaarmayaa hal walxood kelmadda af xun inaan lagu dhihin arbitra kelmad xun markii aday dantaada tahay labo eedaab nimaan eedaab lahayn meel ma tegaayo waxaan idinka dardaarmayaa kelmadda leeyahay eedaabta in ilaalisiin horta intaas waa adika markaan soo gudbo madaxda iyo macallimiinta waxaan kula dardaarmayaa horta macallin waa ogyahay markii ilmo dugsi u dhigliya ama iskoor u dhig wax la kulmaayo dulqaadkiisu waa inuu noqdaa kii nebi ayuub macallinka dadka wadana waxaan kala dardaarmayaa ilmahan waa ilmo adiga aadna meel kugula soo korin oo bannaanka yimid waxay u baahan yihiin dulqaad weyn ani meel dhaweyto waan israacnay guruu baan israacnay aniga oo ka mid ahay waxaan tagnay isviiska ilaah baa ogaasay wax ahaayeen marka ilmaha waxaa loo baahan yahay dulqaadkii adduunka ugu weynaa in loo yeesho adoo nin kuu jiifa arkay midaa mid wadanaa baxaya beriin baloola ka sugaysaa allo maxaa samaynay dulqaada lagaaga baahan yahay labo midda uu sheegay ninkii la yidhaaho yaasiin bulsho ilmahan waa inaan lala joogaa markay wax cunayaan oo la kontaroolo mas-uulaa qaaday canug dhammaa lagu dhiibay mas-uul adaa ah saa canugaada u maamulaysa kana inuu u maamushid mas-uuliyadaasa ugu daran marka hadalkii aad ku badan kubaddu waa gabar la jecel yahay camal intaad jeceshaa kubaddeel markay dhammaatana waa dhammaatay asalaamu calaykum waa mahadsan tahay gabagabadii gaar wax yaraan oo dhiman hadda waxaa u yaraa degaaya cabdulaahi maxudiin iyo macani bile السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta sideedaba maamul markii la dhisayo waa inuu ka bilaabmaa grass roots macallin ama tababaraha noqoto ama cayaartooy waxay mar walba tixgeliyaan ay muhiimadana siiyaan siduu u dhisan yahay organizationkaas ama maamulkaas uu dhisan yahay waxaa caawa halkan nala fadhiyo wax la yidhaha maamul wanaag waxaad arkaysaa markaad u fiirisid mataqaanaa sportiga markaa u fiirisid waa caawa markii igu horreysay aan la kulanno saddexda macallin ee kooxda wado ee mar walba ku dadaasho fadhiisato la sheekaysato og meeshay ka samaysan yihiin ninka fiican iyo ninka kale ayagana wax ma qaban lahayn haddiisan maamulka kore u fiicnaan lahayn marka waxaad arkaysaa meeshan waxaa jira wax la yidhaaho isbahaysi midda kale waxaan usoo noqonaa cayaartooyga yararkan usoo noqonaa cayaartooyga yararka waxaa waaye carabtu waxay tidhaahaa man callamanii xarfan sirtu lahu cabdan ninkii wax isoo baray haddaan maanta awood u lahay waxaan u naqan lahaa xataa nin servant aan u naqan lahaa marka idinka idin qusaysaa you have to show him that kind of respect inaad tustaan waay marka wuxuu idinka soo dhex bixiyey 20 40 50 qofood oo idinka soo dhex bixiyey so you can wear our flag calankeena you are our ambassadors safiiradeenaa tihiin waxaad tihiin nimankeena matalayo waxaan rabno inaan gaashaan ka dhigano marka all the time forget that you are a Somali
education ninka markaa la hadlaysa xataa aragtid tus what's one of the reason meesha u timid maxay yihiin marka waxaa waaye inta waa iga dardaaran maamulka mataqaanaa macallimiinta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyo ragga soo qaban qaabiyo waana mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتا runtii caawa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maxaa yeelay sugootinta ciyaartooyda la sugootinayo maaragtay runtii aniga lafteeda qiiro gooni ayaan ay itusis maxaa yeelay waxaan soo xusustay waqtigii aan ciyaari jiray xilliyadan oo kale maaragtay muddo 30 sano kahor saan oo kale aan markaan baxayn aan noo sugootin jiray runtii ninkaan aad u jeedaan axmed nuur maxamed xaashi aniga gooni ahaan ayuu ii soo barbaariyay ciyaartooynimo wuxuu gaaray inuu jeebkiisa iga fangaray oo uu yiraahdo haddaad birita gool dhaliso lacagtaas ku siina marka waa isocosii jiray marka maantina dhalinyarada socosii way ku fiican tahay runtii horta saad ogtihiin sports waxyaabo badan isku keenaa ninka macallimiinta haddaan wax yar idin kaaga qabtaa cali cabdi xasan cali mire oo ciyaartoydii hore wagad kooxda qaranka runtii aniga si gooni ah u naqaanaa oo isla soo ciyaari jirnay maaragtay gargaar sidoo kale maxamed barsaab oo isaga lafsadiisa macallin weyn aan ogahay ah runtii sida aad ogtihiin 10 sano ugu dambeeyay ciyaaraha Sweden ka dhaco kale maaragtay qaybta farsamada ayaan aniga aan mas'uul ka ahaa farsamadana waa ogtahay waa meesha shaqada ugu dhibka badan maxay waxa laga rabaa inaad aad ilaaliso ciyaartooyga ugu akhlaaqda fiican ciyaartooyga top scoring ciyaartooyga ugu goolasho fiican macallinkii wax waliba mogta marka macallin maxamed barsaab runtii wuxuu noqday dhowr jeer inaan siiyo macallimiinta ugu wanaagsan waa arkay waana soo qabtay runtii wax sahlan ma aha xuseen kulli waxay la tahay ma aha markii hadda ugu horeysay uu soo qaban qaabiyo cayaarahan oo kale marka runtii waa ku taageeraynaa dagaalka uu muujiyey waana ku farxsanahay inuu ugu faa'iideeyo dhalinyarada maaragtay isboortiga marka waxaan dhihi lahaa in general haddaan nahay bahaweynta isboortiga UK ama ha noqoto maamul ahaan ama ha noqoto ciyaartooy ahaan waa inaan ka faa'iidaysanaa ama aan isweydiinaa maxay tahay faa'iidada aan ka helayno marka ciyaartooyda kale ama ay baxayana ama aan soo dhaweynayno faa'iidada aan ka helayno maxay tahay marka faa'iidada waa dareemi karnaa mid waxaan uga faa'iidaysanaynaa inaan dhaqankeenna ama culturekeenna aan la wadaagno marka maadaama ciyaartooydu ay waddankan ay ku dhasheen inaan tusno isjaceelka iyo inaysan iloobin ruudka ay ka yimaadeen mid labaadna ciyaartooyda waxaa loo baahan yahay inaa ogaatiin macnaha faa'iidada aad ka helaysiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي لهادلي لها هورتا ددكي هورا هادلي مدحدا دنا waa fadhidaa wixii macallin noo ahaa wixii maamulo noo ahaa Soomaaliya wax maqan ma laha meeshaana waxaan iskugu nimid calanka shalayna waxaan ku maqneen calanka 10 maalin ka hor calankaas aan mitilayni waliba ciidamo adduunka wixii boolis jiray ayaa joogay runtii wax aad loogu farxo waaye maamulkan u jeedinna ilmo leema wado dad waaweyn xataa waa wadaa مثلا macnaha waa maamul jecel in meel walba calankan ka jiro inay caawiyaan calankan mitilkiisana waa anaga midnimadeena midnimo hadaa rabto waa calankaas marka hadal badan wax ma tarayo thanks brother thanks marka waxa qiiro weyn igiliyay markuu nin Faransiis yimid uu funaanadan yiri booliska Soomaalida igu bedelo dan waxaan ogaaday aniga inaan ahay dawlad weyn ah ما هي قعوتي never بركي فنان ديدان بدشي ميغو قيمين معناها قعوتي وقيمد وحيغو قيمي بوليس كسوماليدا aan ku nimid meesha runtii dadka meesha yimidna waxay noo wada haysteen inaan boolis nahay mana ahayn waa mitilnay laakiin maxaan u mitilnay sababta calanka xasaarkay haddana waxa gaarnay gabagabadii barnaamijka waxa uu yeerayaa doctor Cunaayo oo takhtar isboorti oo odayaasha isboortiga ugu waaweyn London degan ku soo Cunaayo bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida niyadda oo looga soo wada qayb galay ninbaa waa wuxuu yiri waxtar weeye haddii talada la isku waafaqo waayo araggana wixii jira laga waraystaa wanaa kula jeclaha talada waa la wadaagaa jooyo markii la wadaagayo hooyooyinkii odayaashii aabbayaalkii isboortigii guddigii qabanqaabinayay waa wax weyn runtii aad baan u jeclahay isboortiga wax kale kuma jecliye
maadaama dhallinyarada la yidhaahdo xubinta ugu firfircoon ee bulshada mar kastoo aad ku dhex jirto waxaad dareemaysaa inay dhallinyaro tahay ma raba inaan hadda da'da ma jecla soomaalida waxaa lagu ducaystaa cibaado suuban iyo cimri dheer laakiin qofka marka da'da la weydiiye ma jecla inuu sheego marka horena waxuu leeyahy ilaahu cimrigayga dheeray marka dhanka dishibliinka waxaan xasuustaa 1961 kolleeja Ferrari kolleeja la yiraahdan ku jiray ma iga rumaysanaysaan tobanka aan ku soo galnay sida magacyada ay u kala horeeyaan baan isku salaami jirnay magacaada magaca kale hadduu ka horeeyo joogo dishibliinka oo la barayo qofka in uu u hoggaansamo wax walbaba marka xanaaqa cayaartooyga waa la yaqaanaa dareenkiisa waa isbedelaya markuu kaamka galo nin waxaad arkaysaa adoo soo jeeda ku dhaafayo ma ahan inaad laado inaad wax ku dhufato haddaad u aragtay inuu kaa xeelad badan yahay ku soo dadaal inaad gaarto